Assalaamu calaykum asxaabi muddo badan oo kala maqneen ugu dambeyn dib ayaan u soo laabtay xoogaa maalmahan waan iska yar xanuunsanaa laakiin hadda alxamdulillah waa ka fiicnaaday muuqaalkana maanta waxa uu ku saabsan yahay taxanaha Kurulis Orhan ama aasaaskii dowladda Cusmaaniyiinta maalmahan imtixaanaha uu aad xiiso u sii yeeshtay inkastoo ratingkiisa weli gaabis yahay kulli markastoo taxanaha ratingkiisa gaabis yahayna waa mar walba TV-yada ay ku fikiraan inay gabi ahaantiisaba joojiyaan saafilaya marka ugu dambeysay xalqada 18aad ratingkiisa arkay waxay ahaayeen tusaale ahaan 3.7 oo kale tusaale ahaan waa markii uu Kurulis Cusmaan ahayna taxanaha mid walba 15 16 ilaa 10 kala ahaayeen marka waa la kala fahmi karaa Soomahan farqiga u dhaxeeya marka taxanaha waxa uu maraya hadda meel aad u xiiso badan ninkii shaah ahay oo inuu afgambiyo isku day dowladda Orhan oo aasaasoy sidoo kale waxaa jira dhacdooyin kala duwan oo aad u xiiso badnaay sida ninkii Falafios ahay oo dhaawacmay xitaa sidaan filayo waxaa dhaawacay Yigit kaasoo tuuriyo inuu ku bubsiyay Anjala sidoo kale waxaa jirta in uu ogaa doono Orhan waxa ka dhaxeeya Falafios iyo Fatima sidoo kale xitaa waxaa la sheegayaa in Alauddin oo taxanaha ka bixi doono waxaa kaloo la sheegayaa inuu ka bixi doono Falafios taxanaha muuqaalkan waxaan kaga bogan doonaa xogahaasi haddii aad nagu cusub tahay channelka subscribe dhaho kambalelkana furasay ku soo gaaraan muuqaalada aynu soo dhigno haddii aad hore inoola joogtayna muuqaalka laag inoo saar inoona share garay oo asxaabtaada inoo gaarsii si ay inooga mid noqdaan ayagana aynu ku bilaawno in taxanaha uu ka bixi doono Alauddin taasi waa maya Alauddin taxanaha kama bixi doono Alauddin waxa uu ahay sida la sheegay taariikhda ninkii xitaa asaasay ciidamada dharka gadgaduudka wata oo ku jira taxanaha Maxamed Faatix inkishaariyiinta haddii aad taqaaniin waa taxanaha Maxamed Faatix ninka asaasay asiga ayuu ahay baaladha waxaana ahay wasiirka dowladda Cusmaaniyiinta marka sidaan fudud kama bixi karo ninkii Falafios ahayna asigana markaan u imaano sidoo kale asigana Falafios ma uusan ka bixin weli taxanaha waxaa kaloo jirtay xog muhiim ah in Dursun uu ogaaday Falafios familkiisa iyo qabiilka ay ka soo jeedeen yacni qabiilka hore loo ogaay ee familkiisa kuwa ay yihiin sidoo kalena waxaa la sheegay shuxshuux ama xan dhaxwareegiisa baraha bulshada in uu ku soo biiri doono taxanaha Falafios walaalkiisa kulli run iyo been ma sheegi karo laakiin waa sida la sheegayo wixii run noqdana waan arkaynaa wixii been noqdana waan iska tuuraynaa kuwii runtana waynu qaadanaynaa marka xogaha ugu muhiimsanay oo ugu macquulsanay oo hadda aan soo arooriyay waa inta haddii aad doonaysana xogo kale inaan ka soo arooriyo wayba jiraan kuwa kale muhiim ah dhankaasi komitiga waa inoo la wadaaga kartaa haddii aad doonaysa in taxanahan asigana si joogto ah aan uga soo arooriyo waxyaabaha cusub ee ka soo baxa marka waxaan kaga tagayaa sidaan iyo nabadgelyo intaan kaga kulmaan muuqaalkiisa xiga kana laakiin oo sii saar sidaas iyo nabadgelyo